iminka haddaan kelmad ku darsado waxaan maqlaayay iyadoo runtii aad iyo aad la isugu milnayo doorashooyinkii iyo abaarihii waxaana waxay nagu soo noqonayay laakiin maanta kelmad baan jecelahay inaan halkan aad uga ilaado waxaan arkayay Faysal Waraabo oo aad moodo xilliga markay doorashooyinku soo yar dhawaadaan muddo kordhis timaado inuu la soo baxo dardar cusub sanad mar walba ay kordhis timaado abaarahana aad ugu hadlaayay horta dalka wuxuu abaaruhu sababtay ugu jirtaa wax weeye waa Faysal Waraabo laftirkiisa weeye sababta dulmigu hadduu bato isaga waa kii dulmiga sameeyay oo maalin walba inoo hortaagan umadeenna Soomaaliland oo abaariga ka hadlaaya oo dadkii abaare uga hadlaaya umadeenu ay dhageysanaysa horta waxa aan leeyahay shacabka reer Soomaaliland Faysal Waraabo horta ka ilbaxa Soomaalida waxay u jirtay arug shaqo kama ilbaxo mar walba marka shaqo la sii cararaan war Faysal Waraabo laga ilbaxo hadaladiisa yaa la dhageysan dadka ummadda uu isku dhufanaya iyo hadaladan tibaaxda ay isagu wado dadkeena abaaruhu ay saameeyeen loo gurmado Faysal ma aha ninkii ka hadli lahaa abaaraha sababta isaga dulmiga position kan uu joogana malaha position uu soo shaqeystay maaha mar walbana doorasho isugu ku jira maaha qof nin 15 sanadood inoo hortaagan position لم شرح مدحوينها oo soo xabay oo la 14 kun barxafad ku qabsanaya abaarana ka hadlaaya bahalna wala kordhinayaalay maalin walba inaan dadkeena inaan ka ilbaxno weeyaan waxaan xasuustaa sheeko ayaa jirtay nin la oran jiray faqatiir wuxuu ahaan jiray nin hobal oo bariga hore reer miyiga laakiin uu cod xumaa laakiin faqatiir wuxuu rumaysnaa inuu cod fiican yahay marka mar walba faqatiir halkaas uu ka qeylin jiray odayba markaa maalintii dambe ka yaabay faqatiir xumaantiisa iyo dadka u jiibinaya markaas uu yaanu faqatiir lama yaabane dadka u jiibinaya ka yaab waraanu in Waraabo lama yaabane dadka u jiibinaya dhageysanaya ayaa ka yaabay runtii illa la hadlana weeyaan ninkay noo hortaagan ee maalin walba qeylanaya halkaas ku soo taagan abaarihii ka hadlaya dadkeenii ka hadlaya waxyaalaha ka hadlaya marka waxaan leeyahay wax allaale ninka imka hadlaya 14 kun ku dar la xaflad ma ku samaystay hal booyad ku darsan abaaraha tabaalaysan ee la wado dadkii abaaraha iyo dawladda ka shaqeynayay iyo dadkii ka shaqeynayay iyo dadkii wada waxa ka xageynaya inta waxa ka xageynaya lacagtii xisbiga loo siiyay in xisbiga lagu maartay lagu horgaliyo $13 bil walba la siinayna isaga ku tamashleeynaya maalin walba diyaarad ku raaxa maalin walba halkaas uu faqad fiirnoo soo istaagaya marka waxaan leeyahay war aynu ka ilbaxno waxaan dadkeenuna inay isku dubnaadaan baa wanaagsan yaana naxli la kala gelin abaarahana haloo wada gurmado waa waxay nagu soo noqonaya waxaanu baahanayna qorshe ka yeelano hadda ka bacdi oo aynu dawlad shicib cid walba inay u guntato qof walba intii uu karaankiisa hayo jeebkiisa ka soo saaro oo siiyo doorashadana anigu waxaan leeyahay in haloo daayo commissionka ku xisaaran haddii ay qaban karayaan ha qabtaan haddii kalena on la qaban kareen dib hal loo dhig wax big deal maaha laakiin waxaan waa sharci weeyaan maxkamad baa xukuntay oo ku soo baxday walaa silaayo madaxweynaha ayaan xuquuq lahayn la yiraahdo hal kordhiyo walaa xisbiyada gudoomiyayaasha ayaan xuquuq lahayn waa in channelkii procedure-kii la maraa waxa weeyaan commissionka guurtida iyo maxkamadda institutionska ku shaqale adeer ha ka howlgalaan xisbiyadu iyagu nimanka xisbiyada ama gudoomiyaasha ama tartamayaashu iyagu waa ku platformka loo sameeyay iyagu mar walba go'aan kama yeelan karayaan taas baan ku soo gabagabeeyo. Assalaamu calaykum.